Bismillahirrahmanir Rahim daawadayaal halkani waa VOS News Soomaali xaruntiisa guud u kuliyay magaalada Hargeysa waxa la soo gaaray aaminsan hawadiisii soo barin jirnay war waxaan idinka haynay deegaanada Soomaaliya dugsiga caalamka intiisa kale qodobada wararka habeenimada caawa aanu idin haynana kuwada ugu door karoole waxa kamid ah madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seydi oo maalintii labaad ku sugan gobolka Salel gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax ayaa waxa uu shaaciyay inuu cafiyay siyaasi Ramaax magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa waxa la gaarsiiyay 16 kamid ah dadkii dhaawac ka soo gaaray qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho ee gas control madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Madoobe ayaa waxa uu mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada ka dhigaystay wixii uu qabsoomay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo bandhigtay dakhligii 2019 taliska ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa faahfaahin ka bixiyay duqeymo ay ka geysteen Shabeellaha Hoose tirada dadkii lagu waayay qaraxii ka dhacay gas control afkooda oo la shaaciyay muranka u dhaxeeya Greece iyo dalka Turkiga oo qarka u saaray inuu gaaro maxkamadda cadaaladda daawadayaal kuwaas waxa ay qodobada idin haynay kuwada ugu door corona imikii haatan ku soo dhawaada kuwaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan